السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل معنا ونكسن داوديا مركز نقد ونسان كسر لبعض وركينا مانتا خطبنا وقدر كورونا يا واحد كم ده اللي بانا كل قيب سمي جوابتي سوماليا كبعزي وصحافة كسر بحي دولة كينيا. وزيرك وزارة مالية دولة كبولان وشاعي قرشاعي مكوضان مشارات كالوسينيو مواطن صوماليات oo lagu dilay dalka Koonfur Afrika. Mareykanka oo beeniyay in askar loogu dilay Beledoogle. Sarkaalka tirsan dawladda oo lagu xiray garoonka diyaaradaha ee degmada Dinsor. qodobada kala faahfaahsan u diyaar garowga. waa maalinimo asniina taariikhuna ay ku beegan tahay 18 bisha 2019 ku soo dhawaada warkaas oo faahfaahsan oo ka daawan doontaan telefishinka caalamiga ee SBTV. wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda Puntland Xasan Shirre Abgaal oo shalay xilka si rasmi ah u wareegay ayaa ka hadlay qorshaha ay wasaaradda maaliyadda ku doonayso in ciidamada Puntland mushaarkooda ku siiso. waxa uu sheegay wasiir Xasan Shirre in ciidamada Puntland ee mushaarka la siinayo ay noqonayaan kuwa diiwaan gashan isla markaana ay la yimaadaan shaqo wanaagsan. wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland ayaa sheegay in qorshaha ciidamada Puntland xuquuqdooda lagu siinayo ay ka imaan karto ganacsatada reer Puntland oo bixiyaan lacagta canshuurta ayna wasaaradda ka shaqeyso. ugu dambeyn waxa uu tilmaamay wasiir Xasan Shirre in uu la shaqeyn doono shaqaalaha wasaaradda maaliyadda Puntland isagoo u rajeeyay shaqo wanaagsan. war-saxaafadeed ka soo baxay howlgalka Mareykanka ee Africom ayaa lagu beeniyay in 3 sarkaal oo ka tirsan militariga dalkaasi lagu dilay madaafiic ay al-shabaab ku weerareen saldhig ay ku leeyihiin deegaanka Beledoogle ee gobolka Shabeellada Hoose. Mareykanka ayaa tilmaamay in wax khasaare ah weerarkaasi aysan ka soo gaarin ciidamadiisa degan saldhigga Beledoogle oo qiyaas ahaantii magaalada Muqdisho u jirta 95 kiiloomitir. inta badan Mareykanka ayaa weeraro xagga cirka ah la beegsada deegaanada xarakada al-shabaab. si kastaba ahaatee Mareykanka ayaa sanadkan sare u qaaday duqeymaha uu ku fuliyo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. sarkaal lagu xanibay garoonka diyaaradaha degmada Dinsor ee gobolka Bay ayaa waxaa lagu magacaabaa Axmed Cabdullaahi Aadan waxaana uu ka tagay magaalada Baydhabo oo ah xarunta gobolka Bay. sarkaalkaas ayaa sheegay in dhawaan loo magacaabay ciidamada militariga ee ku sugan degmada Dinsor u dirtay dowladda federaalka Soomaaliya. gaashaanle sare Axmed Cabdullaahi Aadan oo ah sarkaalka ayaa warbaahinta u sheegay in sababta loo xayiray ay tahay kadib khilaaf soo kala dhaxgalay isaga iyo gudoomiyaha degmada Dinsor ee gobolkaasi Bay isla markaana ciidamada Itoobiya u diideen in uu gudaha u galo degmada Dinsor. waxa uu sheegay in ciidamada Itoobiya ku amreen in uu diyaaradii uu saarnaa dib ugu laabto hase yeeshee uu ku diiday isla markaana uu weli ku sugan yahay degmada Dinsor. maanta oo isniin ah uu ka wajahan yahay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. saacadaha soo socda ayaa la filayaa in gaashaanle sare Axmed Cabdullaahi Aadan uu gaaro Baydhabo si xal looga gaaro khilaaf uu sheegay inuu kala dhaxeeyo gudoomiyaha degmada Dinsor taasoo keentay in garoonka diyaaradaha magaaladaasi lagu soo xiliyo. koox burcad ah ayaa xalay muwaadin Soomaali ah ku dilay magaalada Port Elizabeth ee dalkaasi Koonfur Afrika. marxuumka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Yuusuf Maxamed Ibraahim iyadoona burcadii dishay ay goobta isaga baxsatay. ciidamo ka tirsan kuwa booliska iyo xubno ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ayaa gaaray meesha uu dilku ka dhacay. inta badan Koonfur Afrika ayaa waxaa ka dhaca dhibaatooyin xooggan oo loo geysto ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalkaasi. weli waxaad nagala socotaan telefishinka caalamiga ee SBTV. dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ka soo jawaabtay war-saxaafadeedkii ka soo baxay dowladda Kenya kana soo erisay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya. dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo ka jawaabaysa war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda Kenya waxay cadeynaysaa kow dowladda federaalka Soomaaliya waxay shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinaysaa in ay u taagan tahay ilaalinta madaxbanaanida qarannimada midnimada iyo wadajirka dhuleed iyo badeed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. labo dowladda federaalka Soomaaliya waxay aad
ugu xun tahay war-saxaafadeedka aan xaqiiqda ku salaysnayn ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya kuna amartay danjiraha Soomaaliya ee Kenya inuu wadatashi ugu laabto Soomaaliya sidoo kale wadatashi ugu yeertay danjiraheeda war-saxaafadeedkaas oo ay ku jiraan qodobo meel ka dhac weyn ku ah dowladnimada sharafka iyo diris wanaaga ka dhaxeeya labada shacab. saddex dowladda federaalka Soomaaliya waxay cadeynaysaa in qariirada shidaalka Soomaaliya ee lagu soo bandhigay shirkii London ay ku muujinaysay badda Soomaaliya islamarkaana aysan jirin wax xirmooyin ah oo la xaraashay. afar dowladda Soomaaliya waxay ku kalsoon tahay xaqnimada dacwadda ay u gudbisay maxkamadda cadaaladda caalamiga ah waxayna aaminsan tahay in ay maxkamaddu u qaadi doonto dacwaddaasi si xaq ah. sidaas darteed dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku baaqaysaa in laga war dhowro go'aanka maxkamadda. shan dowladda Soomaaliya iyada oo maraysa wadiiqooyinka diblomaasiyadeed ee caalamiga ah waxay dowladda Kenya la wadaagtay qoraal rasmi ah oo ay ugu falcelinayso war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda. dowladda federaalka Soomaaliya waxay xusuusan tahay kaalintii wanaagsaneed ee dowladda Kenya ku garab istaagtay Soomaaliya. toddoba dowladda federaalka Soomaaliya waxay u mahadcelinaysaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo muujiyay midnimo iyo wadaniyad taageerana la garab istaagay dowladooda. qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay jawaabta dowladda Soomaaliya ay ka bixisay go'aankii Kenya ee ay kaga soo saartay safiir Maxamed Axmed Nuur Tarsan oo shalay Muqdisho ku soo laabtay. xildhibaanada ayaa qaarkood waxay go'aankaasi ay ku amaaneen hal qodob oo ah inuu yahay mid muujiyay biseel diblomaasiyadeed halka qaarkoodna ay u arkeen inuu ahaa mid jilicsan. xildhibaan Sadiiq Xirsi Warfaa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee taageersan xukuumadda ayaa sheegay in go'aankaasi mid diblomaasiyadeed oo muujinaya biseelka siyaasadeed ee dalka. sidoo kale xildhibaan Warfaa ayaa sheegay in ay socdaan wadahadallo labada dhinac u dhaxeeya isaga oo sheegay in Soomaaliya aysan marnamo gorgortan ka galaynin taako ka mid ah dhulka Soomaaliya. xildhibaan Sakariya Xaaji Maxamuud oo ka mid ah xubnaha dhalisan xukuumadda ayaa sheegay in aad u dhaliilayo go'aanka dowladda Soomaaliya ka qaadatay hadalkii dowladda Kenya hal sabab darteed. waxa uu sheegay in dowladda Kenya ay ka xadgudubtay dhulka Soomaaliya sidoo kalena ay ku dhawaaqday hadal xanaf ah oo dadka Soomaaliyeed iyo dowladda intaba taabanaya balse dowladda looga baahan yahay in jawaab kulul ay siiso taasi oo aan dhicin. xogayaha guud ee ururka qaran ee kalkaaliyaasha dalka Master Sedu Banyako ayaa sheegay inay jiraan 8 ka mid ah ismaamulada waddanka oo ay maanta si rasmi ah uga bilaaban doonto shaqo joojinta maalmihii la soo dhaafay saamaysay qaybo ka mid ah dalka. waxa uu hoosta ka xariiqay xubnaha ururka KNUN aanan laga cabsi gelin karin in shaqada laga eriyo ama amar maxkamadeed. Master Banyako ayaa intaasi ku daray in xitaa iyadoo madaxweynaha dalka Master Uhuru Kenyatta uu maalmo ka hor amar soo saaray haddana aynan ka daali doonin in ay u ololeeyaan xuquuqda kalkaaliyaasha isagoo faahfaahin ka bixiyey arrinkaasi. kalkaaliyaasha ayaa doonaya in loo kordhiyo lacagaha gunooyinka ay qaataan gaar ahaan kuwa looga xisaabiyo labiska shaqo iyo u adeegidda shacabka. ra-iisul wasaaraha waddanka Australia Scott Morrison ayaa sheegay in lagu hayo faragelin shisheeye oo dhanka internetka ah inkastoo uunan si gaar ah u magacaabin dalalka uu arrinkaasi ku tuhumsan yahay. waxa uu carabka ku dhuftay in weerar dhinaca internetka lala eegtay xildhibaanada Australia taasi oo keentay in la dhaco hanaanka xisbiyada waaweyn ee siyaasadeed. xildhibaanada waddankaas ayaa bishan lagu booriyey inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bedelaan lambarada sirta ah ee ay isticmaalaan ka hor doorashada loo qorsheeyey inay ka dhacdo bisha 5aad ee isla sanadkan. amarka la siiyey mudanayaasha ayaa yimid kadib markii ay soo baxday xog ku aadan sirdoonka oo lagu ogaaday in weerar dhinaca internetka ah lagu hayo hanaanka kombiyuutarada baarlamaanka Australia. inta ayaan ku soo afmeerina war wixii dalkii daafaca caalamka naga soo gaaray. intaan warkan war midaan kulmi doono waxaa idinkaga tagay sida nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.